السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا الصحابي سو دوادا دمالين wanaagsan iyo maxaan dhahdaye waxyaabo badan oo cusub waxaan rajeynayaa meesha joogtaan nabad qab ku joogtaan iyo caafimaad dee waa iska maxaan xaal aduun so maanta dee sheekadii aan idinku cusboonayn baan idin wadaa laakiin bal dee maxaan dhahdaye qolo walba siday wax u aragto unba dee aragtidu way kala duwan tahay laakiin waxyaabaha dhacdhacaya in la iska maxaan dhahdaa la wacyigeliyo ama la is ogeysiiyo ama maxaan dhahdaye dee laga warhayo aan laga dhigalaanin waxyaabahan dee adduunka ka dhacaya dee wax kasta adduunka maaragtay waa la isla wadaagaa oo maaragtay maxaan dhahdaye dee wax inagu cusub ma jirto adduunka marka laakiin inaga Soomaali ahaan waxyaabahan waynu qarin jirnay waxaynu qarin jirnay qabiiliyaan la caayin iyo reer hebeyaan waxaasay ahaayeen la odhanin iyo ninka shahala sharfo iyo ninka magaciisa yaan la dilin yani ayaa maxaan dhahdaa waxyaabo badan ee adduunka ka dhacay inagu aynu qarinaa aynu hoosta gashanaa aynu maxaan dhahaa huwanaa marka maxaan dhahdaa wixiiba dee maxaan dhahdaayey media yimi wax la qarinayo imka ma jirto waana fiicantahay in aan la qarinin because qofka khaayinka waxa sameynaya ma helayo maxaan dhahdaa chance waxa uu ku sameeyo waayo wuxuu ogyahay haduu sameeyo in dhagta lagu soo dhageeyo la qabanayo marka waxyaabo badan ee adduunka dee waxyaabo cajiib ah ka jirta horta siiba adduunka waxa ku dulman caruurta iyo dumarka ayaa ku dulman waqtigan taagan waliba siiba Afrika ma kala joogo caruurta iyo dumarku aad bay ugu dulman yihiin okay dulmigii aynu kula joognay wadankii lagu joogay ayaa waxaan u soo waaridnay adduunyadii kale loo soo waariday oo loo soo qaaday markaasaan waxaan leenahay wariyaan adduunyoy annaga idin imi Soomaali baa la yiraahdaa waxaanaanu maxaa sidinaa waxaana inaan ku dhaqanaaban doonaynaa marka conflict weyn baa ka dhacay dunida kale nimina waxay leeyihiin annaga meesheeda noogu timaadeen waa inaad ku noolaataan sida anagu u noolahay waa ina sharciga qaadataan waa ina sharciga maxana ku dhaqantaan waa inaan anagu buugayga ku qornay ku socotaan Soomaalidina waxay leedahay anagu buugi walaayan kala nimi wadankii buug waana bisita Soomaalidu buugi walaayan Soomaaliyan kala nimi Soomaali maxana hadawna wadankii kala nimi ayaanu sideenaa rabnaan ku dhaqan marka waxa weeye dhibaato weyn baa ka jirta waxaan leenahay dad buka oo isqarinaya waxaan leenahay dadka qasha oo isqarinaya waxaan leenahay dadka dhiba oo isqarinaya dadka haadaan uga tuura ayaan leenahay wax kasta waan leenahay laakiin maxaynu ku xunnahay inagu adduunka kala waxba kaga mid weyn laakiin mid baynu kaga duwannahay mid aynu kaga duwannahay waynu qarinaynaa keena wax qariba taasin adduunka kaga duwannahay keena wax walaaqa ee wax dhiba ayaynu taa kaga duwannahay ma soo qabano iskama qabano daalinka iskama qabano khaayinka doqonta xune waalanee wax walaaqaysa iskama soo qabano dulliga xune wax cunaya balaayada rogaya caruur dhibaya dumar dhibaya umad kale dhibaya iskama soo qabano meel waxa Allah waa inaan kayo soo gasho ama waa nin reer hebelo ayaan la maxana wax loo ayaan umada kale aanay maqlin markaasaynu suhuwanay markaasaynu hoosta ka qurunay oo darxiina galay oo deetana wixii darxiga iyo balaayadana bay saysan karo banaanka u soo baxday bug adduunkii qurunkeena iyo darxigii bay khaatiyeen bilaa ka taagan yihiin Soomaaliya waxaynu ku noqonay adduunka harag urayeen ku noqonay adduunka harag urayeen adduunka ku noqonay isma celino isma qabano keena wadaadka iyo ka caqliga wanaagsan leh iyo ka yaaban بدنا أفكيس محنا ودتك وكعلي وكواني مالك completely وحين لو فردين لو بتشدني بكهضلية ندي هضلانا مركا الشيء كذا إذا مركا وحن كسر بيشوفانية عن شيء قصة شيبة كده عادي إنه يبان تهينا ورشينية إنه يبان نقطة أو نقطة وحلة سومينا ولينا نقطة أي رشينية because شيء كذا وحي حنوشيني سا أو دبعتا كتة هاي عروتا Soomaalida
gabadh baa waxay la soo xidhiidhay nin la yidhaahdo maxaa dhahdaayey wadaada wadaadka anigu magaciisa ma garanayo waa halkan idinka tusi doona wuxuu soo galaa tiktoka maybe inaa garataan so wadaadka wuxuu yidhi gabadh baa timi waxay tidhi wadaadow caruur baan leeyahay oo weliba hablo yaroo 10 jir ka yar ilaa 3 ilaa 4 hablood baan filaya inay tidhi oo 10 jir ka yar wadaadoo markaan soo kaco waagi markuu ii bariyo waxaan ka caruurtiyo saraawiishooda hoos looga riixayo xubintii taranka caruurtii biyaha ragga lagaga shubay ay saasay ku tiri gabadh wadaadkii dabtan wuxuu yiri maxaa markaa wadaadoo ma jin baa noo yimaado guriga ma shaydaan markaasay shaydaan iyo jinku ordaan markay balaayka soo gasho mashuda so waxaa dhacday marka wadaadku wuxuu ku yidhi orda u tagay dhakhtarka geeya maxaa dhahdaa dhakhtarka ka soo bar waxaan inuu yahay wax kale investigation han la galo social work meesha soo galo waxaas markii waxba ka waxba maxaa ka qaban kar way waxba laga waayo marka anaga nagu soo laabo quraan iyo waxbaan guriga saarayna laakiin inta ka horeysa la xiriir dawladda iyo maxaa dhahdaayay igoro dhakhtaradii waxa gabadhii way soo bud waxay tiri maya anagu ninkaygi iyo reerka ma ka shifinayo caynkan caruurteydan waa caynkan yani waxay dambe basaysaa oo hoos u dhigtay maxaa dhahdaayay caruurteedii bay horta xaqirtay gabadhaasi haday runta sheekado caruurteedii bay xaqirtoo dhulka gelisay ko maxaa dhahdaayay ninkiina ay sharfaysaa oo leedahay magaciisa iyo cidiisa iyo kan ma raba in dadku maqlaan what kind of mother she is maxay tahay hooyada noocaas maxay tahay way nagu jirtaa way naga buuxdaa hooyada noocaas oo kale halkaasay naga taagan yihiin oo ninkoodii caruurtii dadka dhibaya ama hooyo arkaysa ninkeedii inuu wax dhibaya qaranaysa halkaasay naga taagan way naga buuxdaa sometimes marka qaarkood halkaa way kala luma cadho awgeed adigu sidii gabadhii ku carartay ku baxday marka waxa weeye sheekadu waxa weeye hooyadu caruurteeda waa inay siisan priority number 1 wayna ka dhigtaa caruurteeda wax allaale wixii kale waa inay dib u dhigtaa ma fahantay adduunkan wax kasta caruurta marka la farafareeyo trauma ku dhacda nolosha mustaqbalkooda ka xumaada waxa gelaya cuqdad binafsiin ka baxaynin noloshooda soo socota hadii ilaahay daayo way ka xumaanaysaa completely wuxuu noqon karaa ilmaha sadhato inuu waasho ama uu isdilo ama uu dadilo ama uu daraagas cuno ama uu noqdo qof suuqa marayo waashayo waxaan ku yiri in mariyaba sidani kuwa wax taabanaya way bukaan laakiin in la qariyo maaha nin caruurtiisa taabanaya ama waxyaabahaas ku sameynaya in la qariyo maaha caruurtiina haddii la taabto waa in horta caruurta balaayo dhan ba raacaysa baladu markay gacantuba ay gaadho caruurta markaasay u dambaysa noloshoo ka xumaanaysa ta inagu weliba aynu ku sixunnahay waxa weeye maxay dhahdaayay caruurtii ma dhegeysanayno caruurtii haaf baan ku soo dhanayna haw naanagaamo shab lagaa dhigi waxaanay ka hadlaysaa waa maxay no caruurtani markay wax kuu sheegayaan labadaada dhagood intaad furtid dhegeyso dabeetana adigu dabagal sheekadan halkay ka timi iyo ilmahana wuxuu ka cabanaya dabagal oo eeg haddaa laakiin ilmaha ku qaylisida haw ku tidhaahdid ولقيا وآمصيا أبيسك يقولن كنا وكسعنيا حدو تمركو وينادو ووالن ويستلي قف بودلي المحانا هذا أدينا هدوتو نحريسي وحبا كنتو سمايين ما سوكا رقاتشني آخرين هذا اللي بوديني واي وحن إلهي باكو دبتي أمان وأمان إلهي كو دبتي كوري إلهي كو كوري أدونك المها سان كو بتاقي كوري وسيدو سفي أنا كو أرساقي كوري
korintu maaha cunto iyo in wayna akhlaaqisa maxaa ilaalisid wayna cirdigiisa ilaalisid wayna si fiican u ilaalisid wax abuse waynaad ka ilaalisid wayna tacliin bartid Soomaalida guryaha aynu ka buuxinay ilaa 10 qof been gurigayga afkaasuu mari jiray gurigaas bale oo dhan ba ku dhex jirta mid bukaa ku jira mid xasida ku jira mid cuqdad qaba ku jira mid balaayo dhan soo samiyaad garanin ba ku jira guriga kugu imanaya caruurihiina anigu mar horena waan ka soo hadlay waxaan caruuraha la ilaaliyo iminka dhibaatadii aynu ku haynay wadankiina inta soo qaadnay adduunyada kala la nimo amar xaasil hooyooyinka waxaan leeyahay hooyooyino caruurtiina ilaashada meel alla meesha joogtaan ama Afrika jooga ama dunida kala jooga caruurtiina ilaashada haddaad ilmihiina waxaan ku aragtaan idinkoo qaylin oo buuqin oo horta wadaad ba haba u teginaba wax leeyahay sheekh ba haba teginaba waqtiyadan joogna sheekh ma haysano you don't Soomaali sheekh ma haysato waxba yu garweyn ku soo qaxiran inuu qoranayno maxaa ku forforsan Soomaali sheekh ma haysato waxaan sheekheeda waasana waa calaamuuna weeye waa fake sheekh bay naga buuxa marka gabadhay waxa kula toosan hadaa joogtay wadan western ay joogtid oo ilmahaaga waxyaabaha noocaas aad uga shakidid adigoo ninka waxba eriyanin sheekhna u tegin waa inaad tagtid soo baadhi dhakhtarada u tagtid atira war bal ilmahani baadha waxbaan ku arkay oo yaad uga shakida dee qofkani la nool isagana waa la soo baadhi iyadoon cidina idin ogeyn caruurtina waa la baadhi haddii waxaas ku yimaadana xabsigaa la gelinayaa adigii caruurtaadina waa badbaadisaan caruurta Yurubta laga qaato waxyaabo badan oo noocyaasi soo shabahan ba iyo maxaa meelaha kale westernka laga qaato waxyaabo badan ilmo wuxuu waa la taabtay ama waa la dilay ama waa la igu qeyliyay dadkana waa shuruuca u yaala iyo maxaa sharciyada u yaala ilmaha hadii waxyaabaha noocaas lagu sameeyo adoon lagaalaba hadlin ee laga qaadanaya because waxaad noqotay waalid aan ilmihii haysan karaynin waalid ilmihii dayacay baad la mid tahay criminal oo kala la mid tahay bal wadaadkana dhageysta anigu waxbaan la yaabanahay adduunka wax walba waa ka socdaane meetro hangi miyaan tuura wow okay waa kan bismillah waayhay ilaa 4 goor baa guriga joogo oo 10 sano ka wadaya habeenkii markii aan subaxdii soo kacay waxaan arkaa iyagoo lugaha loo kala qabtay oh no sorry waxaan ku weydiiyey kayskan asaga ah oo wax ku saabsan baa inuu jin iyo shayaatiin iyo inay noo imaadaan hooyadan 3 ilaa 4 goor baa guriga joogo oo 10 sano ka wadaya gabdhaha habeenkii markii aan subaxdii soo kaco waxaan arkaa iyagoo lugaha loo kala qabtay biyo rageedna uu ku daasan yahay xubintooda taranka waxaan ku weydiiyey kayskan asaga ah oo wax ku saabsan baa inuu jin iyo shayaatiin iyo inay noo imaadaan miya waadana ma noogu soo diri kartaa in xana quraan saar guriga naga inta markay i weydiisay ballan baan qabsanay investigations bilaabay yaa kula degan baan iri waxay tiri ninka ayaa ila degan wax kale guriga yimaada ma jiro adoo maxaa qabataa subaxdii baan ka lahaa habeenka anigoo daalan baan balaq ah ayaan soo dhacay tiri oo horaan ka seexdaa su'aalaha aan weydiiyay waxa kamid ahaa ninka adiga aad wada joogtaan waxyaalaha qaar korto suspicion ma jiraan wax un ii sheeg maya qof cajiib ay ahayd oo ninkeeda irkan aad u jecel maya markii dambe waxaan kasoo saaray ugu tiri wuxuu daawadaa x waxyaalaha oo mataqaanaaya online laga daawada ee sexiga ayaan ku arka soo daawanayta dhowr jeer hore ka sixir waxaan arkay asaga oo sariirta aan kula jeefo korkeeda istimnaa ama PSA kale waan arkay inta waan hubaa maxaa u qorsoon waxyaalaha kale way diiday kadib waxaan ku ruxno baahanahay ciyaalkani in dhakhtar la xiriirsiiyo baaritaan lagu sameeyo DNA la qaado investigation la bilaabo social work kiiska soo galaan inta markii aan waxba ka soo weyno kadib ay culimadu eegaysaa waxaan inuu yahay hawlo kale kitaabada iyo quraanka iyo markaas aan idin saaraya waxay igu jawaabtay eeb uma soo jeedayo kiiskan adiga soo dhaafin maca salaam aniga يعني عيب كما دارا غرانتا إن أنت عيال قانا دو عيال كيجيبان وشكي
تام السمينايو ولا هي قالقة ولا شيء information كان أنا أقول لكن وأنا هلا قيس سنة وحلقة يا بقوليها قار إنه كجرو وحد نوجا تام ولا ليال كيسس كان نوع. Do you hear it? ninkan kuma eedeynaya bay tiri carruurta intan ka hayn ninka ma eedeynaya bay tiri bataa hooyadii Soomaaliyeed ahayd anigu sheekadaas hadday soo gaari lahayd after second waxaan garaaci lahaa boqoladaasaan u sheegi lahaa toos ugu sheegi lahaa waxaan anigu rajeynaya calaa cumuul waxaan rajeynayaa inay sheekadaasi aanay waxba ka jirin waayo carruurta damage xun baa soo gaadhaysa bal Soomaaliya bal maxay idinla tahay commentka bal ku reeba waxaad ila tahay hooyadaasi miyay khaldan tahay miyay saxsan tahay wadaadkan se muxuu markiiba isagu uu garaaci waayey meesha odhan waaye maxaa dhaa war ilmaan ka shaki gabadhaas waxay la timi yacni qof walba waxay mas-uul ka yahay waa yacni waxa weeye waa figure buu u jooga dad buu matalaya ninkani community buu u fadhiyaa meesha ama maxaa dhaa muslimiin ha noqoto ama Soomaali ha noqoto marka qofka dadka wax lagu yimaado lagu su'aal lagu weydiiyo that's mean responsibility but maxaa waa inaad qaadid waxaa meesha ka situation ka mas'uuliyad ba ka saaran marka inaad qaybtaada ka qaadatid weeyaan warniyo waxaa saa dhacay marka waxa weeye ummaddu waxa weeye way wararsan tahay ya Allah u sahal carruurta ummadda muslimiinta iyo Soomaalidana Allah maxaa dhahday ha soo hanuuniyo wixii xun Allah inaga qabto khayr baan idin rajeynayaa bal comment kana bal wax ku soo reeba saa u aragtaan sheekada khayr baan idin rajeynayaa maca salaama